السلام عليكم سود وهذا أصحاب يوتيوب كسر وهذا لينكم waxaan rabaa muuqaalka in idinku soo gudbiyo laba secret oo ku jira syntaga mobile-kaaga kuwaas oo loo baahan yahay inaad isticmaashid marka labada secret koowaad waxa weeye waa speed-ka mobile-kaaga speed slides-ka mobile-kaaga macnaha mobile-kaaga hadeerto markaan saa u rogo mobile-ka oo kale saa u rogo waxa laga yaabaa inuu marka qaar yara daaho markaas see u korin kartaa speed-ka animation-ka ama dhaqaaqa apps-kaaga ama screen-ka mobile-kaaga secret koobaad waa ka marka ugu horeysa marka waxaad tegaysaa syntaga ayaa tegaysaa dabadna syntaga markaad tagtid waxaad tegaysaa waxay ku qoran tahay halka ay ku qoran tahay developer optionska marka developer optionsku marka ugu horeysa enable ma aha oo syntaga kuma jiro marka waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa inaad enable ka soo dhigtid oo aad syntaga ku soo dirtid waxaad nagu soo dari kartaa inaad tagtid about phone-ka halka ugu hooseysa about phone-ka baad tegaysaa dabadna waxaad tegi kartaa software information halka ay ku qoran tahay software information marka tagto waa kan billi number 7 jeer baad taabanaysaa billi numberkaas 1 2 3 4 5 6 7 marka tiraad ana hadda wuxuu leeyahay lama baahna software developer-ka already uu ku jira syntaga marka uma baahnid inaad billi numberka isticmaashid buu ku leeyahay laakiin adu 7 jeer baad taabanaysaa billi numberka dabetana wuxuu ku siinayaa khaanad yar buu saaraya ku dhahay password-kaaga geli dabetana password-kaaga gelinaysaa kabacdi halkan wuxuu kugu soo darayaa syntaga waxa loo yaqaano developer optionska developer optionska markuu kugu soo daro hadii aad matalan weydid bill numberka halkan search kan boxka ayaa isticmaali kartaa adoo ku qoraya bill number markaad ku qortid toos buu kugu soo saaraya waa hadii aad ka weydid halka aan ku tilmaamay macnaha about phone-ka marka waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay developer optionska oo markuu enable ku noqdo baad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaad tagaysaa hagan hoose ayaad u baxaysaa hotspot soconaysaa halkan ayaa tegaysaa ay ku qoran tahay Windows animation-ka waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa 1 buu taagan yahay 1x buu taagan yahay waxaad ka dhigaysaa animation scale 0.5x baad ka dhigaysaa hotspot soconaysaa halka ay ku qoran tahay transition animation scale-ka snap 0.5 baad ka dhigaysaa anuu hore marka hore ayuu yahay laakiin adu hadda ayaad ka dhigaysaa animation 0.5 aad ka dhigaysaa haddana xagan ay ku qoran tahay animator duration scale aniga hadda 0.5 ayaan ka dhigtay hore ayaan uga dhigtay laakiin default ahaan waxay u taagan tahay 1x bay taagan tahay marka 1x bay taagan tahay waad ku dhufanaysaa dabetana waxaad ka dhiganaysaa animation scale 0.5x baad ku dhufanaysaa kabacdi waad iska xidhaysaa syntaga oo dhan waad ka baxaysaa markaad ka baxdid waxaad arkaysaa mobile-kii inuu si fudud u shaqeynayo oo macnaha screen-ka daqiiqad ay saa isu rogayaan marka waxaad ku korin kartaa speed-ka animation-ka software-kaaga ama application-ada ku jira mobile-kaaga secret-ka labaad ee ku jira syntaga aan doonayna caawa inaan ogaadno waxa weeye notification-ka marka mobile-kaaga uu logo ku xiran yahay ay ku soo dhacaan WhatsApp messages ama messenger-ka ay ka soo dhacaan message ama text message caadi ah uu ku soo dhaco wuxuu soo fuulayaa screen-kaaga dabetana screen-kaaga markuu soo fuulo waxa dhacaysa in qofka saa u arkaaba uu macnaha akhrisan karo oo screen-kaaga de uu message-kii ama half-kii uu soo saaray ama isagoo dhan uu soo wada saaray dabetana qofka akhrisan karo ama uuba soo saari karo qofka ku soo diray magaciisa oo kale WhatsApp oo kale inuu ku soo hebel waxa ku soo diray marka taasoo kale sideebaad macnaha maadaama laga yaabo in sensitive message ay yihiin message-yada moogtay xasaasiya laga yaabo in marka qaar ku soo dhacaan dabetana qof aan logaba ka saarin mobile-ka intuu saa u eegay uu halka ku arko macnaha message-ka ka akhriyo marka taasoo kale sideebaad ugu digtoonaan kartaa syntaga ayaa ku saacidaya inaad iska ku xaskolo iska seetid marka waxaad ku dhufanaysaa syntaga dabetana waxaad tegaysaa ama waxaad samayn kartaaba inta dad badbaadid waxa laga yaabaa inaad weydid oo mobilada ay kala duwan yihiin search box-ka aad markasta isticmaalaysaa dabetana waxaad ku qoraysaa waxa loo yaqaano search box-ka markasta isticmaal kugula talinayaa hidden content ama hidden sensitive hadba ka isticmaali kartid hidden sensitive hadda isticmaashid iyo hidden content hadda isticmaashid labadaba uu ku soo saaraya sorry waatan hidden content baad ku dhufanaysaa hidden content waxay hoos tagtaa hadda halkan oo kale haddaad tagtid log screen-ka ayay hoos tagtaa marka hidden content markaad search ku samaysid halkan oo kale ay ku qoran tahay hide content ayaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay button-kaas ayaad enable ka dhigaysaa ama open ka dhigaysaa furaysaa sidaa awgeed markaan hadda screen-kayga aan haddaan log geliyo waxaa laga yaabaa in uu maagtay video-gani go laakiin haddeerto marka aad saa u gelisid loga
wax message ku oolaya ma jiro hadda halkaas oo kale halkaas sare soo ma jeedaan halkaas oo kale ayaa tusaale ahaan macnaha preview ka siinaya hadda markaan saa u furo daawo waxaa soo saaran hello log screen ba halkaas sare saaran hadda videoga dushiisa eeg hello log screen marka hellodaas message bay ka dhigantahay haddaan furo macnaha hellowdii wixii khadka laga saaraya marka notification-ka ku soo dhacayna ama message-yada ku soo dhacana sidaas ayaad shaashada mobile-kaaga uga qaadi kartaa ama aad u qarin kartaa muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu